sanadku waa 2024 kooxda Paris Saint-Germain waxay 8 sanadood gudahood qarash galaysay wax ka badan 1 bilyan oo euro iyagoo raadinaya koobka kooxaha Europe Champions League xilligaasna waxa hogaaminayay Kylian Mbappe laakiin marna kuma aysan guuleysan xil ciyaareedkii xigayna waxay ku fasaxeen si bilaash isla markiina waxay ku guuleysteen Champions League hal nin ayaana si sax ah u sii sheegay waxa dhici doona hadii uu baxo wuxuu ka hadlayay halgan waxaana uu ka hadlayay waxa hogaamiye dhaba looga baahan yahay inuu sameeyo balse qofna ma dhageysan hay'ashee 2 sano kadib kooxda Real Madrid waxay ereysaa tababarayaal waxay guul dareysanaysaa il Clasicoyin waxayna qaateen xil ciyaareedkii labaad oo koob la'aan ah haddaba muxuu Luis Enrique arkay oo aysan cid kala arkin maxaa digniintiisii hadda ka dhigaya wax caalamka oo dhan ay wada qirayaan si loo fahmo sababta digniintaasi ay muhiimka u ahayd waa inaynu ka bilownaa Bondi oo xaafad ay ku nool yihiin dadka xoogsatada ah oo ku taala waqooyi bari Paris Kylian Mbappe ayaa ku dhashay December 1998 aabihiisu waxa uu ahaa tababare kubadda cagta hooyadiina waxay ahayd ciyaaryahan hore oo kubadda gacanta waxa uu ku koray guri uusan sports ku ahayn ikhtiyaar balse uu yahay wax lama huraana isaguna wuxuu ahaa mid loo go'aamiyay wadadii uu mari lahaa ka hor inta uusan xitaa qaan gaarin markii uu jiray da'da 14 sano dhammaan akaadimiyadaha waaweyn ee qaaradda Yurub ayaa doonayay xitaa Real Madrid ayaa u soo dirtay safar uu ku booqdo kooxdooda waxa uu la kulmay Zidane waxaana uu galay sawir ku galay fanaanada Real Madrid kaasoo daba socday sanado badan oo noloshiisa ah laakiin waxa uu doortay ugu dambeyn inuu ku biiro akaadimiyada kooxda Monaco halkaasi oo ay ka bilaawdeen waayihiisa ciyaaruhu sanadkii 2016 isaga oo jirada 17 sano Mbappe waxa uu ka mid noqday kooxda koobaad ee Monaco hal sano gudihiisna waxa uu kaga yaabsaday kooxihii Champions League ee Manchester City iyo Borussia Dortmund dhammaantoodna waxay si adag u barteen in wiilkan yari uu kubadda ula ordi karo si ka dheeraysa ciyaaryahan kaste marka uu caadi u orday isagoo kubad wadan waxa uu ku guuleystay Ligue 1 ka xilciyaareedkiisii ugu horeeyay ee buuxa waxa uu sameeyay dabaaldeg caan ah oo gacmaha isdhaafsanaya kilkilahana gelinayo dhool cadan yar oo aamusnaani ka muuqata ayuu muujinayay mar walbana waxa uu ogaa inuu yahay ciyaaryahan gaar ah laakiin xagaagaasi waxa jiray dhacdo aan dad badani ka hadleen Kylian Mbappe waxa uu muran la galay ciyaaryahan khibrad badnaa oo xilligaasi ku sugnaa Monaco xidigaas oo la oran jiray Andre Raje warbixinadu waxay sheegeen in ciyaaryahanka ugu da'da kooxda uu diiday inuu orod iyo tababar adag sameeyo xilli ciyaartooyda kale ay sameynayeen muddo kooban ayaana laga gaaxay tababarka kooxda koobaad si degan ayaana loo qariyay xogtaasi hibadiisuna waxay ahayd mid cirka isku sii shareeraysa laakiin anshaxiisa mar walba su'aal ayaa kortaagneed markii PSG ay xiisa u muujisayna xitaa wax ixtiraam ah muusan muujin kooxdiisa Monaco kuma uusan adkaysan inuu u dagaalamo inuu kooxdiisa sanad kale la sii qaato uma uusan muuqan hogaamiye waana u baxay PSG ayaa ku iibsatay lacag rikoor 180 milyan oo euro ah Roma aysan soo saxiixan kaliya inuu yahay wiil da'yar oo soo baxaya ee waxay siiyeen furayaasha magaaladaasina waxay u muuqatay inay tahay mid ku faraxsan inuu maamulo ilmo yar xagaagii uu yimid Paris Kylian Mbappe durba waxa uu ka qayb galay koobka adduunka ee 2018 dalka Ruushka waxa uu gool dhaliyay finalkii Croatia waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee gool ka dhaliyay finalka koobka adduunka tan iyo Bale xulka qaranka Faransiiskuna waxay qaadeen koobka Kylian Mbappe waxa uu jiray da'da 19 sano oo kaliya isaga oo durba noqday mid ka mid ah ciyaartooyda ugu caansan dunida 6 sano ee xigtayna Paris waxay ahayd magaalada Mbappe wuxuu ku guuleystay Ligue 1 6 jeer 7 xilli ciyaareed waxa uu qaaday koobada France 3 jeer wuxuu ku guuleystay kabta dahabiga ee gooldhalinta iyo ciyaaryahanka sanadka wuxuu noqday gooldhaliyaha ugu sareeya ee taariikhda kooxda PSG isagoo dhaliyay in ka badan 200 oo gool kii ugu da'da yaraa kii ugu dhaqsiyaha badnaa kan ugu qaalisan iyo wajiga kooxda balse koobkaasi oo dhan gadaashooda wax kale ayaa si tartiib ah u socday tababarayaasha si joogto ayaa looga cayrinayay kooxda Unai Emery ayaa yimid waxaana uu baxay 2018 isagoo ku guul dareystay inuu isku dheelitiro kooxay ka mid yihiin Mbappe iyo Neymar kadibna waxaa yimid Thomas Tuchel waxa uu ahaa xeelad yaqaan dhab ah waxaana uu PSG gaarsiiyay finalkii ugu horeeyay taariikhdeeda ee Champions League 2020 waxayna hal iyo eber guul darro kala kulmeen kooxda Bayern Munich Mbappe waxa uu helay fursad qadii ugu dambeeyay balse ma uusan dhameystirin laakiin dhibaatada Tuchel ma aysan ahayn fursadaha la lumiyay oo kaliya waxa uu rabay raacasho joogto ah waxa uu rabay isla xisaabtan wuxuuna ka fakiray mararka qaarkood inuu kursiga kayd ka fariisiyo Kylian Mbappe ma ahayn bandhigiisa darteed balse waxay ahayd hab dhaqankiisa balse maamulka kooxda ayaa diiday xitaa waxay ku qasbeen Tuchel inuu raali gelin siiyo Mbappe ciyaartooyda hortooda halkaasna awoodii kooxda PSG si rasmi ah ay isu bedeshay tababaruhu ma ahayn hogaamiyaha ee xidiga ayaa noqday tababar kasta oo gadaashiis yimaadana waxa uu ku dhaqmayay isla 10kaasi Tuchelna waxa la eriyay 2020 shan bilood kadibna wuxuu Champions League kula guuleystay kooxda Chelsea waxay u muuqatay in adduunku wax walba dib u xasuustay kadibna waxa yimid Mauricio Pochettino nin degan oo la jecel yahay hal sano gudaheedna waxa uu awoodi waayay inuu maamulo qolka labiska isna waxa la eriyay 2022 kadibna Christopher Galtier ayaa yimid 2022 uma uusan fashilmin xeelad ahaan balse waxa uu fashilmay siyaasad ahaan waayo Mbappe ayaan jeclaysan doorkiisa waana uu muujiyay
galtiana waxa uu baxay 2023 afar tababare ayaa isbedelay 3 sano gudahood qaabkaasna ma uusan ahayn wax shil ku dhacay ee waxay noqotay siyaasad rasmi ah hayeeshee gudaha tartamada Yurub koobka ugu muhiimsan kii PSG loo aasaasay inay ku guuleysato weli ma uusan imaanin wareegga 16 ayay ku harayeen sanad kaste si muruga leh iyo waliba ka bixitaan la yaab leh xagaagii 2023 PSG waxay magacowday Luis Enrique ma aha nin lagu yaqaan inuu ka talaasulo waxyaabaha uu doonayo wuxuu Champions League kula guuleystay kooxda Barcelona sanadkii 2015 wuxuu ku guuleystay La Liga laba jeer wuxuuna xulka Spain geeyay finalka Nations League wuxuu aaminsanaa raacasho shaqo wada jir ah iyo ciyaaryahanka ugu fiican garoonku inuu noqdo kan ugu shaqada badan waxa uu sidaas kula shaqeeyay Lionel Messi wuxuu sidaas kula soo shaqeeyay Andres Iniesta mana uusan doonayn wax gorgortana markii uu yimid Parisna isla markiiba waxa uu arkay dhibaatadu ma ahayn tayada Mbappe xitaa ma ahayn kibirkiisa ee dhibaatadu waxay ahayd inuusan difaacashada door ku lahayn markii PSG kubadda lagala wareego Mbappe waxa uu sii joogi jiray xagga hore ee weerarka markii kooxdu ay dib ugu soo laabato si ay u difaacato isagu wali xagga hore ayuu ku sugayay kubadda counter attack in loo keeno hal ciyaaryahan oo sidaas sameeya ma burburiso koox hal kulan gudihiis laakiin waxa uu bedelaa mas'uuliyadda qadka dhexe iyo daafacyada garbaha ayay saameyn ku yeelanaysaa shaqadii uu isagu gabay qaab dhismeedka kooxda ayaana markaasi bilaabaya inuu qalloocdo ilaa iyo ugu dambeyn uu ka dumo Luis Enrique waxa uu Mbappe ugu yeeray kulan gaar ah kalama uusan hadlin xeelad ee waxa uu uga sheekeeyay Michael Jordan wuxuu u sheegay in Jordan uu sidii qof waala u difaacan jiray inuu dadaal ka dalban jiray ciyaaryahan kaste inuu tusaale u ahaa shaqadiisa ee aysan ahayn inuu kaliya dhalin jiray kadibna Enrique waxa uu kala hadlay qodobkiisii ugu weynaa waxa uu yiri hogaamiyuhu ma ahan ciyaaryahan ka go'aamiya kulan marka wax walba ay fiican yihiin hogaamiyuhu waa midka kooxda dhabar ka saarta xilliga ay wax walba adag yihiin wuxuu Mbappe u sheegay in gool dhalintu ay u fududahay isaga qofna hibadiisa uusan wax su'aala ka keenayn laakiin haddii uu doonayo inuu gaaro albaabka uu doonayo ee xirfadiisa albaabkaasi oo ay labaduba isla ogaayeen inuu yahay Real Madrid waa inuu bartaa qaybta kale ee ciyaarta waa inuu difaacashada qayb ka noqdaa waa inuu raacasho sameeyaa waa inuu hogaamiyaa kooxda marka kubadda lagala wareego Mbappe waa uu dhageystay laakiin waxba iskama bedelin PSG mar kale ayay ku guuleysatay Ligue 1 Mbappe waxa uu dhaliyay 44 gool tartamada oo dhan laakiin tartamada Yurub waxay gaareen semifinalka Champions League halkaasina Borussia Dortmund ayaa ku reebtay mar kale iyo sanad kale oo muruga xagaagii xigay Mbappe waxa uu wareegay kooxda Real Madrid waliba si bilaasha heshiiskii uu ku riyoonayay tan iyo markii uu jiray daada 14 sano oo uu sawirka ku galay fanaanada Real Madrid ayaa dhaboobay waxa uu ka baxay PSG isagoo boqor Luis Enrique waxa uu bilaabay inuu dib u dhiso kooxda isagoo Mbappe uusan ku tiirsanayn halkan ayay sheekadu ka sii xumaanaysaa Mbappe la'aantiisa PSG waxa la saadalanayay inay daciif noqon doonto oo falanqayaal badan ayaa sidaas isku raacay waayo waxay lumiyeen goolliyihii ugu weynaa ee taariikhdooda wajigii mashruuca iyo sababta fanaanadoodu u ahayd mid ugu iibsiga badan qaaradda Asia laakiin halkii ay dumi lahaayeen waxay noqdeen koox aan la joojin karin Luis Enrique waxa uu dhisay saddexley weerar oo ka kooban Ousmane Dembele Desire Doué iyo Kvaratskhelia waa saddex ciyaaryahan oo mid walba kaligiis caan ahaan iyo gool ahaanba uusan ku gaari karin Mbappe laakiin wada jir ahaan waxay sameeyeen wax Mbappe uu diiday inuu sameeyo oo waa raacasho joogta Dembele ciyaaryahankii ay dad badan ku tilmaamayeen mid hibadiisa ay luntay xilligii Barcelona waxa uu isu bedelay ciyaaryahan cusub waxa uu daba ordayaa kubadaha marka laga soo qaato wuxuu cadaadis saarayaa difaacyada wuxuuna dhaliyay 35 gool tartamada oo dhan PSG-na waxay qaaday saddexley Ligue 1 Copa de France iyo Champions League finalkii Champions League ee 2025 5 iyo eber ayay ku garaaceen kooxda Inter Milan waa 5 gool oo nadiif ah iyo final kooxdii 8 sano ku guuldareysanaysay Champions League iyadoo Mbappe uu hogaaminayo ayaa ku guuleysatay koobka xilciyaareedkoodii ugu horeeyay ee la'aantiisa Dembele waxa uu ku guuleystay Ballon d'Or ka sanadkaasi Mbappe ma uusan ahayn xitaa mid kamid ah labada ugu sareeya wariye ayaa Luis Enrique weydiiyay sida uu waxan ku sameeyay waxa uu ka hadlay shaqo wada jir ah waxa uu ka hadlay dadaal waxaana uu ka hadlay sida ciyaaryahan walba uu aqbalay nidaamkiisa magaca Mbappe marna ma uusan sheegin waayo uma uusan baahnayn digniintiisina waxay noqotay mid si sax ah u muuqata ciyaaryahanka ugu weyn ee kooxdu waa nidaamkii ayaana shaqeeyay markii uu baxay Mbappe dhinaca Real Madridna Mbappe waxa uu moodayay in waxa soo dhibaato ay yihiin sheeko uu ka gudbay koobabna uu sanadka xiga kula guuleysan karo kooxda ugu weyn dunida laakiin arrimuhu sidaas ma noqon markii Mbappe uu yimid kooxda Real Madrid xagaagii 2024 kooxdu uma aysan baahnayn isaga weerdaasi waa laga yaabaa inay la yaab kugu noqoto laakiin Real Madrid xilligaasi waxay ku guuleysteen Champions League goodi 15 waxay qaadeen La Liga waxayna haysteen xidiga waaweyn sida Vinicius Jude Bellingham Rodrigo Federico Valverde iyo wiil da'yar oo mucjisa oo soo baxayay Arda Güler waxay haysteen Carlo Ancelotti nin ku guuleystay wax walba kadibna waxay la soo sixideen Kylian Mbappe fikradaasi waxay ahayd mid sahlan waayo waxa uu ahaa ciyaaryahanka ugu fiican dunida oo si bilaash lagu heli karay bilowgii calaamado la yaab la ayaa soo baxay Mbappe si
gaabis ayuu ku bilowday xil ciyaareedka waxa uu qasaariyay rigoorayaal El Clasico-dii ugu horeysayna waxa uu muuqday inuu iloobay xeerarka offside-ka wuxuu istaagay meel dhowr tilaabo ka dambaysa daafacyada markii uu Vinicius kubadda u dhiibana calanka offside-ka ayaa taagnaa inta aysan kubaddu soo gaarin kaamiraduhuna waxay qabteen wajiga Mbappe oo jahwareer ka muuqdo ugu dambeyntiina Mbappe waxa uu dib u helay qaab ciyaareedkiisa dhamaadkii xil ciyaareedkana waxa uu jabiyay rikoorka gooldhalinta hal xil ciyaareed ee Real Madrid waxa uu dhaliyay 44 gool tartamada oo dhan 31 ka midana waxay ahaayeen horyaalka La Ligaha waxa uu ku guuleystay kabta dahabiga ah ee Yurub balse Real Madrid waxay lumisay wax walba waxay ku guuldareysteen Spanish Super Cup-ka oo Barcelona ka qaaday waxay ku guuldareysteen finalka Copa del Rey oo Barca ayaa ka qaaday waxay ku guuldareysteen La Ligaha oo Barca ayaa ka qaaday waxay sidoo kale ka hareen Champions League quarter finalka markii Arsenal ay reebtay kulankaasna Declan Rice ayaa laba jeer ka dhaliyay kubadda laadka xorta ah halka Bukayo Saka uu aamusiyay Santiago Bernabeu koobabka kaliya ee Real Madrid ay qaaday xilligaasi waxay ahaayeen UEFA Super Cup-ka iyo tartanka koobka kooxaha adduunka oo xilligaasi aysan ka qayb galin kooxo waaweyn Carlo Ancelotti ayaa shaqada laga eriyay xagaagaasi ninkii dhisay isku duubnida kooxda ayaa baxay waxaana sii joogay kii kooxda burburinayay Real Madrid waxay ku bedeshay Xavi Alonso tababarada yara gaajaysan isla markaana jecel raacashada waxa uu Bayer Leverkusen ku soo hogaamiyay Bundesliga iyadoo aan hal game laga badin waxaana uu ahaa qofkii ugu haboonaa Alonso waxa uu joogay 6 bilood oo kaliya Janaayo 12keedii 2026 Riyadh Sacuudiga finalka Spanish Super Cup-ka Barcelona ayaa Real Madrid ku garaacday 3-2 Barcelona ayaana ku guuleysatay Super Cup-keedii 14aad ciyaartooyda Madridna waxay ka soo baxeen garoonka iyagoo u eeg sidii rag aas u socda wixii dhacay dhamaadkii ciyaartana waa kuwa mudan in lagu daro dokumentariyada mustaqbalka waayo dhaqan ahaan kooxda laga guuleystahay waxay saf sharafeed u gashaa oo maamuusta kooxda guuleysata waa dhaqan ka jira kubadda cagta dhexdeeda salaam sharafeed ayaa loo galaa kooxda guuleysata Barcelona hore ay ugu sameysay Real Madridna hore ay ugu sameysay Barcelona sida daraadeed gudaha Spain tani waa calaamad la ixtiraamo Xavi Alonso tababaru waxa uu bixiyay amar Antonio Rudiger ayaa bilaabay inuu dhaqaaqa dhinaca saf sharafeedka xidiga badan oo Real Madrid ayaa bilaabay inay safka galaan hay'ashe Kylian Mbappe ayaa diiday uma uusan dhaqaaqin waa uu istaagay meeshiisa kadibna waxa uu gacanta u haatiyay saaxiibadiisa kaamirooyinkuna waxay soo qabteen daqiiqadahaasi isagoo u sheegay ciyaartooyda inay soo baxaan oo aysan saf sharafeed u galin Barcelona dabcan taasina waa ay sameeyeen oo kooxda ugu koobka badan Yurub ee aqoonsigeeda lagu yaqaan sharafta iyo ixtiraamka taariikhda kubadda cagta waxay garoonka uga bixeen amar uu bixiyay ciyaaryahan joogay kaliya 18 bilood qolka labiska gudihiisana warar ayaa sheegaya in Xavi Alonso uu aad uga carooday waxa uu bixiyay amar toos ah ciyaaryahan ayaana ka hor yimid waxaase ka sii xumaa in kooxda inteeda kale ay hogaansantay amarkii ciyaaryahanka oo aysan raacin tababaraha halkaas ayayna wax walba ku dhamaadeen waayo qolkii labiska midnimadiisii iyo kala dambeyntii ayaa luntay Alonso waxa uu wajiga cid walba ka akhrisanayay xaqiiqada isaga waxa uu ku magacoonaa tababaraha Real Madrid laakiin ninka go'aanka dhabta ah waa Mbappe 4 maalmood kadibna shaqada ayaa laga eriyay si rasmi ah kooxdu u sheegtay in natiijo xumo loo eriyay Real Madridna waxay ka hoos martay xilligaasi dhinaca horyaalka La Ligaha Barcelona waxay barbara galeen kulamo ay ahayd inay badiyaan Janaayo 2026 Real Madrid waxay guuldaro kala kulantay Benfica Champions League Kylian Mbappe ayaa 2 gool dhaliyay laakiin waxa ma bedelin Real Madridna waxay u dhacday kaalinta 9aad iyagoo aaday play-off ciyaarta kadibna Mbappe ayaa warbaahinta la hadlay oo waxa uu yiri kooxdu joogtayn male kooxda ku guuleysanaysa horyaalku ma aha inay maalin fiicnaato maalinta kalena la waayo waxa uu yiri kooxdu waa inay dhibaatada saxdaa dabcan waa uu saxnaa oo cudurka ayuu sheegay laakiin kaliya waxa dhacday waxay ahayd inuu naftiisa sharaxayay quarter finalkii sanadkii hore ee Champions League Mbappe inta badan waxa uu joogay qaybta hore ee weerarka isagoo oo socod ku ciyaaraya isla markaana sugaya kubadda dhaadheer oo loo soo tuuro raacashooyinka waalidahay waxay ka dhacayeen hareerihiisa kubadaha la kala qaadanayo sidoo kale geesihiisa ayay ka dhacayeen Declan Rice ayaa sameeyay 90 daqiiqo gudahood orod masaafo oo ka badan inta uu Mbappe sameeyay labadii lug ee Arsenal sanadkii hore kulankii koobka kooxaha adduunka ee u dhaxeeyay kooxaha PSG iyo Real Madridna oo taageerayaasha kubadda cagtu ay kaga maadeysanayeen baraha bulshada Mbappe ayaa isaga oo kubadda wato isku dayay inuu goysmo ku dhaafo Kvaratskhelia ciyaaryahankii Luis Enrique uu keenay PSG inuu bedelo isaga Mbappe kubadda ayaa laga qaatay waana uu istaagay oo daawaday Kvaratskhelia kubadda ayuu la dhaqaaqay lamarka 7aad ee cusub ayaa ka qaatay kubadda lambar 7adii hore nidaamka cusub ayaa bahdilaya xidigii hore arinta oo dhanna waxa qeexday 10 ilbiriqsi Kylian Mbappe hibadiisa shakhsiyadeed waa mid aan doodi ka taagnayn waa mid kamid ah 3 ciyaaryahan ee ugu fiican dunida waxa uu leeyahay xawaare dhamaystir iyo farsamooyin dilaa waxa uu haystaa koobka adduunka wuxuuna ku guuleystay kabta dahabiga ah iyo rikoorada tirabela laakiin waxa uu san wali ku guuleysan waa Champions League iyo inuu san wali helin hal tababare oo si guulada ay wada joogaan heerka sare ee kubadda cagta waxa uu san wali ku guuleysan in kooxdu ay sii xoogaysato marka isagu u yimaado halka ay ka daciif lahayd su'aashii Luis Enrique uu ku weydiiyay xilligii Parisna waa su'aasha qeexaysa inta dhiman ee xirfadiisa inaad tahay xidig weyn oo aan mas'uuliyad lahayn ma dhisi kartaa wax gaar ah ilaa iyo haddana xogtu waxay sheegaysaa maya
xogtu waxay leedahay marka Mbappe uu yimaado tababarayaasha ayaa la waayaa xogtu waxay leedahay xidigaha ku xareeraysan waxay bartaan inay isaga ku tiirsanaadaan ilaa aysan shaqayn karin la'aantiisa xogtu waxay leedahay marka uu tababara dalbado isla xisaabtan dhaba isaga ayaa ka hor yimaada oo dooda ku guulaysta tababaruhuna boorsooyinkiisa ayuu ka xirtaa kooxda qaybta ugu xanuunka badanna waxay tahay in xulka Faransiiska uu isagu u shaqeeyo halkaasi oo uu ka yahay mid ka mid ah ciyaaryahanna badan funaanadu ay ka weyntahay ciyaaryahan kaste Faransiiskuna waxay gaareen finalkii koobka adduunka isaga dartii laakiin Faransiisku kuma aysan burburin hareerihiisa heerka kooxahaas isaga ayaa noqda culayska ay kooxo badani u burburaan Luis Enrique waxa uu doodan ugu guulaystay sababtoo ah waxa uu fahmay wax sahlan koox u muuqata sidii 10 shaqaale ah iyo hal nin oo superstar ah waa ay badin karaan kulamo laakiin ma qaadi karaan koobka waaweyn ee taariikhdooda ku qormaya goolasha waxa lagu badshaa kulamo laakiin difaacashada ayaa lagu qaadaa koobabka Real Madridna Mbappe si waliya ayuu u dhalinayaa goolasha wali laakiin wali kuma aysan guulaysan waxyaabaha runta ee laga doonayo